salaamu calaykum saaxiibada igu xiran iyo kuwa cusubay ma ku wareersan tahay inaad ogaato lamaanahaaga inuu dhab kuu jecel yahay iyo in kale waxaa laga yaabaa inaad xiriir la leedahay ruux aad moodo inuu ku jecel yahay balse aan marnaba ku dhawaaqin saddexda xaraf ee culus si uu kuugu caddeeyo dadka qaar waxaa ku adag ku dhawaaqidda ereyga waan ku jeclahay laakiin taas micnaheeda maahan inaynan ku jeclayn oo wax dana kaa lahayn balse waxay kuugu muujin karaan siyaabo kale xaqiiqdina waa arrin adag inaad si dhaba u ogaato inuu qofku jecel yahay gaar ahaan marka uunan si muuqato kuugu caddayn jacaylkiisa mararka qaarkood ficilada ayaa ah kuwo ka dhawaaq dheerayn kara ereyada waxaadna awood u yeelan kartaa inaad runta u sheegto si keliya aad u hesho calaamad aan ahayn hadal oo lamaanahaaga ku siin karo waxaa jiri kara sababo badan oo keenta in lamaanahaaga uunan afka uga soo saari karin ereyada dhabta ah sida xiriiro hore oo uu soo maray inuusan isfurfuri karin si dhammaystiran iyo waxyaabo kaleeto laakiin wuxuu kuugu muujin karaa qaabab kale waxaan kula wadaagayaa qaar ka mid a calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garan karo qofka ku jecel waxaana rajaynayaa inaad ka dhex hesho xiriirkaaga gudihiisa 8 calaamad oo caddeyn u ah qofka dhabta kuu jecel like sar muuqaalkan waxayna na tusi doontaa inaad ka heshay waa inoo farxad haddaad fikirkaaga hoos inoogu reebto aan ku bilowno qaabka ay kuu fiiriyaan calaamad ka mid ah in qof uu dhab kuu jecel yahay ayaa ah eegmada naxariista leh ee sida tooskaa kuugu fiirinayo markuu ku arkaba tani runtii waxaa kaloo lagu ogaaday daraasooyin cilmiyeysan oo la sameeyey markaad qabato lamaanahaaga oo ku jaleecaya adiga ama ku eegaya intaad hadlayso tani waxay ka dhigan tahay inay jecel yihiin inay waqti kula qaataan oo ay ku faraxsan yihiin inay kula joogaan xitaa markaad mashquul ku tahay la sheekaysiga qof kale waxaad weli qaban kartaa lamaanahaaga uu kusoo fiirinayo taasna waxay astaan weyn u noqon kartaa inay ku jecel yihiin oo ay aad ugu faraxsan yihiin inay kula joogaan waxay rabaan inay kaa taxadaraan haddii lamaanahaaga uu soo degdego inuu ku daryeelo markaad xanuunsan tahay ama aad maqasho war xun oo qalbijab kuu keeno xaqiiqdii tani waa caddayn kaaga filan inay ku jecel yihiin haddii ay ku weydiiyaan su'aalo si ay u eegaan sida aad dareemayso iyo haddii wax aad u baahan tahay tani waxay noqon kartaa hab lagu tilmaamo jacaylka dhabta ah waxay rabaan inaad fiicnaato oo weliba ay hubiyaan qofka jecel qofka kale wuxuu badanaa jeclaan lahaa inuu daryeelo hubiyo inuu faraxsan yahay oo uu joogo marka ay u baahan yihiin marka ka raadi calaamadahan lamaanahaaga maadaama ay tahay tilmaan weyn oo sheegaysa inay ku jecel yihiin way ixtiraamaan booskaaga gaarka ah haddii aad u baahan tahay boos shakhsiyadeed way hubin doonaan inay xoogaa ku siiyaan lamaanahaagu waa inuu ku dhagaystaa oo fahmaa inaad u baahan tahay xoogaa meel ah oo ay tahay in la ixtiraamo haddii lamaanahaagu kaa tago intaad waqti naftaada u haysid darteed oo ay ka mid tahay inuusan kugu wareerin fariimo oo aan soo wactamin in badan markaa tani run ahaantii waxay ka dhigan tahay inay ku jecel yihiin markuu qof og yahay inaad u baahan tahay xoogaa waqti ah xitaa haddii ay tahay dhowr saacadood ama dhowr maalmood wuu fahmi doonaa wuuna ixtiraami doonaa go'aankaaga taasoo astaan u noqon karta inuu yahay qofku jecel waxay ku weydiistaan talooyinkaaga haddii qof uu ku jecel yahay badiyaa wuxuu u qaban doonaa aragtida lamaanihiisa si aad u sarraysa oo had iyo jeer ka doonaya fikraddiisa ku saabsan go'aanada muhiimka ah lamaanahaagu wuxuu ku weydiin doonaa talo ku saabsan waxyaabaha qaarkood wayna og yihiin inaad u badan tahay inaad siin doonto talo weyn oo caawinaysa iyaga taasina waxay muujinaysaa kalsooni weyn si kasta oo ay xaaladda tahay laga yaabay inay wax ka qabaan shaqadooda ama haddii ay u baahan yihiin in laga caawiyo dhibaatada ay qabaan waxay rabaan taladaada maxaa yeelay waxay u badan tahay inay si weyn kuu tixgelin doonaan adiga iyo fikradahaaga naftaada ayay ku jeclaysiinayaan had iyo jeer way fiican tahay inaad haysato qof kaa dhigaya inaad naftaada ku faraxsanaato xitaa maalmaha kuugu xun noloshaada kuma siinayaan farxad guud oo keliya laakiin sidoo kale waxay kaa dhigi karaan inaad dareento wanaag naftaada iyo cidda aad tahay ah taasoo muujinaysa kalgacal iyo jacayl adiga kuugu aadan lamaanahaagu xitaa ma ogaan karo inay samaynayaan arrimahan laakiin sida ay u dhaqmayaan oo u dhaqmayaan hareerahaaga ayaa saameyn weyn ku yeelan kara xiriirkaaga sababahan oo dhan awgood markuu qof doonayo inuu ku farxo qofka aad tahay oo uu helo waddo uu kuugu caddeeyo waxaa laga yaabaa
inuu jacayl xad lahayn kuu qabo. waxay ku baraan familkooda. tani waa horu socod weyn oo qaado xiriir walbo. adiga waxaa leedahay dadka kuwa kuugu dhow oo ka mid ah qoyskaaga, kuwaasoo aad kaaga taxadara kuna daryeela, mar walbana halkaas u jooga dartaada, sax? marka qofku baro qoyskiisana waa arrin wanaagsan oo qofkaas dadka ugu dhow ayaa baran doontaa. waana arrin isdhexgalka familka horseedaya, waana ballanqaad weyn oo dhanka mustaqbalka ah. taana waxaa caddeynaya inay rabaan inay kula kulansiiyaan iyaga kuwa ugu dhow si ay kuu bartaan. marka qof kuu muujiya calaamadahan ballanqaadka leh, waxay caadi ahaan ku tala jiraan xiriir fog samayntiisa oo waddo dheer ayaa ka horeyso. waana arrin muujinaysa inay qorsheynayaan inay weligood kula jiraan, waana calaamad caddayn u ah inay ku jecel yihiin. waxay ku weydiiyaan maalinkaaga. haddii lamaanahaaga uu xiiseynayo ogaanshaha maalintaada, wixii aad samaysay ama kugu dhacay intii aadan wada joogin, taasi waa calaamad xiriirka jacaylka dhabta ah. waxaa la soo kulantay waxay noqon karaan wax heer sare ah ama wax iska caadi ah, laakiin iyagu waxay danaynayaan inay ku dhegaystaan, weliba ku raaxaysanayaan markaa ugu sheekeynayso waxaa soo samaysay ama la soo kulantay maalintaada. waxay doonaanba ha noqdaane, waana calaamad weyn tani, taa oo muujinaysa in lagu jecel yahay. waxay si firfircoon u muujiyaan dareenkooda. way ku adkaan kartaa dadka qaarkiis inay muujiyaan sida ay dhab ahaan dareemayaan, maba kusii jirto dadka xiriirka wada leh toodana. laakiin haddii lamaanahaagu isku dayayo sida ugu adag inuu u muujiyo shucuurtooda, xitaa haddii ay muddo qaadato, waxay noqon kartaa jacayl. tani waa sababta marka aad isku daydaan oo aad isku sheegtaan shucuurtiina dhabta ah, sida aad dareemaysaan waqtigaas yar oo aad iska taxadaraysaan qalbiyan. isdhegaysashada iyo muujinta shucuurtaada waa hab fiican oo looga wada hadlo waxyaabaha laga yaabo inay ku dhibayaan ama xitaa waxyaabaha kaa farxinaya. si kastaba ha noqotee, waa calaamad wanaag ah ee caddaynaysa inuu yahay qofkaasi qofku jecel.